waxa maanta marka horta ii farxada golaha iyagan cusub ee aan maanta ka mid ahay een haddana waliba xilka wareejinayo inay maanta iyagoo midaysan oo isku faraxsan oo raalli iska ah hay maanta xafladan oo kala soo fadhiistaan golaha iyagii hore annagu may dhicin sidan oo kale waxaynu kala maqneen annagu muddo 6 bilood ah xaflad noocan oo kale nooma qabsano saan qurux badan waxaan ku kala maqneen dagaal waxaan ku kala maqneen dirir waxaan ku kala maqneen calool xumo laakiin maanta waxaan nasiib wanaaga inagoo isku niyada isku faraxsan isku mida inaan maanta halka wada fadhino waa alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta mudanayaal iyo marwooyinba maanta ay taariikhdu tahay 30kii bishii 6aad 2022 waxaan halkan idinkula wadaagayaa golaha xilka wareejinaya halkii uu shaqada soo ugu yimiday iyo maanta halka ay taagan tahay annagu golaha iyagoo markaan isku nimid waxaan samaynay assistant baan samaynay degmadu waxay ka kooban tahay 25 tuulo waxaan u baahnay gudiyo oo marka maayar Xuseen Idlaaha gudiyada waxa loo qaybshay tuulooyinka waan soo wada maray degmo walba waxaan ka soo qoray tuulo walba baahideeda waxbarashada caafimaadka biyaha waa 3 shay ugu muhiimsan ayaan soo wada maray waan ka soo qoray waxaan samaynay qorsho 5 sano ah qorsho 5 sano ayaan samaynay 5tii sano u horeysay waxaan isee loo kala baahi yahay waxa ugu horeysa maadaama ay degmadeeni Saylac ama gobolkeeni xagga waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha dalka oo dib uga dhacay dib dhacweeyeen ku yahay waxa ugu horeeyay ee horta ugu horeysinay muxuu noqonayaa waxay noqotay waxbarashada ee horta leeyahay waa dadkii waxbarashadii horta badalkaan soo gaarsiino 25 tuulo 5 tuulo ma waxa kale ma lahayn iskuul ma lahayn dhammaantood waxaanu ka hirgelinay iskuulaan ka hirgelinay waxaanu u dhisnay oo ka dhisnay waqtiga ilaa maanta 46 fasal baanu dhisnay taasi waxay suuro gelisay inay dadkii aqoontii ay waxbarasho la tartamaan dalka intiisa kale qarashna waxaan ku bixinaa sanadkii 165 milyan iyo 600 sanad kasta waxbarashada waxaan ku bixinaa 165 milyan iyo 600 kun Soomaaliland taas markay hirgashay qorshii waxaan annagu hadana buugaygii raacayna qorshe sameedkeygii maxaan ku xijisiinaa waxaan ku xijisana caafimaadka oo loo baahan yahay runtii waxaan jeclaan lahaa maanta inay joogaan wasiiradii qorshahan lahaa ma waxbarashada iyo caafimaadka waxaan nidhi hadana waxaan ku xijisanaynaa caafimaadka ku xijisanaynaa caafimaadkii waxaan nidhi 25 tuulo waxa bila MCH ah 8 tuulo 8 tuulo waxaan u dhisnay 8 MCH baan u dhisnay hal MCH waxaan ku wareejinay dayr waxa kaloo la wareegnay maanta MCH ka xarunta degmada Saylac ku yaala oo gaab galay oo hay'adda HBA ka baxday oo shaqaale 14 qof joogaana waxaan la wareegnay qorshii oo waxaan la wareegnay dawladda hoose laga bilaabo bisha maantana mishaarkooga 14 qof ee shaqaalaha ah ee MCH ka Saylac waxa mas'uuliyadooda qaaday dawladda hoose degmada Saylac waxa kaloo sameynay halka waxaan nibadnay anna waqtigeeyaas degmadu iyaga oo foostada biyaha la siisto 25 kun oo shilin la siinayo foostada biyaha 20 kun la siisto oo xaafadaha qaarkood aan cunto lagu karsan biyo la awgeed waxaan qorshaha ku darsanay in la helo biyo la helo
oo degmadii biyo hesho oo tuulooyinkii bilaabiyaha biyo helaan waxaan bilownay horta oo ugu horeeyay inaan degmadii biyo siino waan bilownay biyihii waxaan samaynay 8 tuulo oo ka mid ah degmada waxaan ku samaynay biyo gelin baan ku samaynay waxaan u samaynay iyadoo hay'adaha caalamiga naga caawinayeen qaybta ugu muhiimsan oo ka mid ahaa barasaaba gobolku 13 taangi ayaan u samaynay 13 tuulo waxa kaloo samaynay biyo ballaarin aan ku samaynay degmada Saylac aan ku samaynay waxaan samaynay inaan ka soo jiidno 5 kiiloomitir iyo 150 mitir aan biyo soo jiidno si aan u keenno magaalada degmada Saylac waxaan u samaynay solar system aan u samaynay biyaha soo qaadnay waxaan u samaynay tuulooyinka ay ku jirto Saylac 17 kios kharashka aan gelinay biyaha degmada Saylac ee aan ku bixinay ka dawladda ahaan wuxuu ahaa 176 milyan 176 kun iyo 600 oo dollar bay noqotay kharashka inta leeg waxa bixisay dawladda hoose ee degmada Saylac muddadii aan joognay golaha waxa kaloo halka joogu jirta qorshaha xagga nabadgelyada waxaan ka qabanay waxaan xusid mudan inaan mar walba xagga nabadgelyada kala shaqayno ciidanka booliiska waxaan u samaynay 2 guriga awgala taliyaha qaybtu iyo guriga awgala taliyaha saldhigu waxaan saldhiga u samaynay saldhiga degmada Saylac hal deer baan ku wareejinay waxaan samaynay oo dhisnay muxuu ahaayay 2 deer laba rugood raali ahaada laba rugood oo samaynay oo rugna toqoshi tahay rugna shacada tahay waxa kaloo samaynay 2 deer kharashka ku baxa marka sanadka booliiska ee aan siino waxa weeye waa 8 askari taliyaha saldhiga taliyaha xigeenka iyo nanka taarka iyo 4 askari oo nagala shaqeeyana xarunta ka booliiska noo shaqeeyana waxa sanadkii aan ku bixinaa 50 milyan iyo 400 kun runtii aad baan ugu mahadnaqayaa xagga nabadgelyada booliiska taliyaha qaybta iyo saraakiishiisaba aad waxaan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee nabadgelyada ah ee noo shaqeeyaan xagga nabadgelyada iyo xagga dakhliga iyo dhinac walba noo shaqeeyaan taliyaha qaybta booliiska gobolka Salal iyo taliyaha saldhiga iyo saraakiil xigeenadooda aad baan ugu mahadnaqayaa halka waxa ku xiga qaybta maamul wanaaga halkan annagu markaan nimidnay waxaan ugu nimidnay waxoogaa 10 xafiis 10 ka xafiis waxa dhex yaalay hal teeb oo lagu garaaco gacanta teebka oo waa xeeb waliba dhaxal ku qabsado marmar oo saliid lagu shubo ayaa hal xabadaas dhex taalay maanta waxaan gaarsiinay 25 xafiis oo degmada inaan dhisno 25 ka xafiis walba waxa yaala kombiyuutarkiisii oo dhameystiran waxa ka jooga shaqaale u tababaran oo aqoontooda leh oo muxuu ahaayay shaqadana si wanaagsan oo xirfad leh oo qurux badan u yaqaana waxayna u badan nimadaasi waa jaam degree iyo dugsi sare tababar fiican qaatay runtii aadna waa waxa weey waa maanta waxa hagaya dawladda hoose ee maanta halkaas soo gaarsiiyay ee ay shaqeeyay waa saraakiisha xafiisyada fadhida waxa kale waa dulka joog dushaan ka maamulo laakiin nimankaasi shaqaalaha saraakiisha dawladda hoose hay way kala shaqo badan yihiin wayna shaqo kale oo shaqo wanaagsan yihiin laakiin dhammaantood waxaan leeyahay aad baan ugu mahadnaqayaa intii muddada soo wada shaqeynay sida ay la shaqeeyeen aad baan ugu mahadnaqayaa runtii waxa kale oo dhisnay 3 guri oo guriyaha martida intaan joognay guriga martida in hadda wasiirad seexanayso guri wuxuu ku yaalaa Looyacado guri kala dayactir baan ku soo wuxuu ku yaalaa degmada Xariirad halka anagu markaan nimidnay xilka la wareegnay
hal gaaraan ugu nimidnay halkii gaarina golaha ay kala saaxiibada ahaa gubay dambas buu noqday halka wax gaari oo ugu nimidna haba yaraata ma jiri maanta gudoomiyaha cusub iyo maamulka golaha deegaanka ka mid ka waxaan ku wareejinaynaa 12 gaari 12 gaari waxa weeye saddex iskarogo yaryar laba iskarogo waaweyn xabad gariidhara xabad sheewala iyo afar lan kuruusar iyo xabad xaajada ayaan wareejinay 12 gaari ayaan maanta ku wareejinayna maamulka cusub anagoo ugu nimidnay bila gaari way dad aad iyo aad u nasiib badan yihiin waxa kale aan ugu nimidnay wayna wasiir shaqaalaha dawladda hoose oo maraya 8 qof maanta waxay marayaan shaqaalu taagan yihiin 130 qof weey halka waxaan ka sameynay shaqo abuur waxaana keenay shaqaalahaas inay inta noqdaan aqoontooda in muxuu ahaayay capacity building loo sameeyay muxuu ahaayay la sameeyay shaqo abuur badan soo kordhay waxa halka aan ugu nimidnay anagu waqtiga oo taasi keenay waqtiga waxay ahayd miisaaniyada anagu aan ugu nimidnay miisaaniyada halkan anagu ugu nimidnay waqtiga aan ugu golaha ay tirsanay waxay ahayd 2 bilyan iyo 400 oo kun oo u dhiganta 282 kun oo dollar maanta oo xilka wareejinaya anigu waxaan wareejinayaa miisaaniyad dhan 12 milyan 12 bilyan 220 milyan 293 kun 416 kun oo shilin oo u dhiganta milyan iyo 408 kun oo dollar halkay markii hore ka ahayd 228 kun runtii anagu intaan golaha hal joognay waxa halkan nala soo shaqeeyay 5 barasaab 6 baa xasuulow waxa kullixa gudoomiyaha gobolka cusub mawlid ba kullix waarno sidoo Xuseen sheegay te barasaabada hore wasa isku qabsiga hadii xawan guri noqotay iyo hadii xakal noqotay saasigu ma jiri iyo moranka aan baan dhex jiray laakiin intuu barasaabka cusub hadda nala jooga jiro lixaad nala joogo waxa dhaqaaqay harumar ba dhaqaaqay harumarka waxa keenay wada shaqaynta isku xidhnaanta iyo wada tashiga ayaa keenay iyadoona wixii laga doonaynin isaguna laga doonaynin de wixii rag hore isku qabsan jiray oo laga doonaynin oo rag waxa isku qabsan jiray guri wala isku qabsan jiray awla laga rabin ayaa wada shaqaynta wanaagsan iyo muxuu ahaay istaageersiga aw gacanta wanaagsan lagu siiyay aan ka wada shaqaynaa anaguna taasaa keentay in wadanku ama degmadu gaadho horumarka inta laga gaadho waxaan leenahay walaalaha yaryar cusubna inkastoo wasiirmaayarka cusub ee xigeenka halka maanta ay taagan tahay waxaan idinku wareejinayaa dee guri dhammaystiran dhisan qalabaysan sharaxan wax alliya wax ka maqan oo jir maanta waxa way waa furiin baa qaadaysa galaysa mar hadduu halka tahay furiin aad qaadayso waxaan rajaynaynaa anagu ku garab taagan ku ballan qaadayna wax alliya wixii aan fikir iyo taageero kala hayna kula garab taagan ina hawshaasi aan halka ka soo noqonin ee halka rawasi socoto xagga adeega bulshada waxaan fulinay waxaan shaqo abuur sameynay waan fulinay ka wasaaradda maxaa kalluumaystada waxaan u sameynay iskaashato waxaan u dhisnay guddiyo waxaan u sameynay ankown intuu way shaqaynayaan maanta aad iyo aad way wanaagsan tahay xagga milixda oo yadna ka mid ah muxuu shaqo shaqo abuurka yadna milixda waxaan u sameynay iskaashato lacag dhigata ankown le wax ku qabsada dee hagis fiican
oo lagu halaan samaynay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa runtii saraakiisha ciidanka booliiska dhammaantood kuwa ciidanka badda oo iyaguna shaqo wanaagsan wada shaqay fiican naga dhaxaysana waxaan leeyahay wada shaqay wanaagsan tayaa ciidanka immigration isagana nala jooga runtii oo isagana xiriir wanaagsan naga dhaxeeyo aan asxaabna nahayna waxaan leeyahay dee waynu wada joognaa maynaan kala tegin wayna wada shaqayn doonaa dhammaantiinba aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo saddexaad gudoomiyaha gobolka runtii muddadii dheerada soo wada shaqaynaynay oo dadku isku kaayaxantaan oo yidhaahdaan waa laba nin oo isku mid ah dee waxaan isku mid ku noqonnaa shaqada naga dhigtay isku mid noqonno shaqada haddaynu kala soconno oo midkeeba moodo gaara soconno horumarka intaa leeg ma qabsoomeen mana jireen marka waxa weeye waxaan ku dardaarayaa xildhibaanada cusub iyo meerka iyo meerxiinka cusub in la xoojiyo wada shaqaynta in la xoojiyo wada tashiga in la xoojiyo muxuu ahaay wax wada qabsiga in la xoojiyo cadaaladda in la xoojiyo muxuu ahaayey sinaanta dadka bulshada waayo waxa maanta te waxaad matalaysaan ama aynu matalayna dhammaanba shacbi weynaha ku nool degmada saylac waxa maanta inoo yaalla wax kaa niibani ma jirto qorshe 5 sano yaalla 5tii sano hore way soo dhammaadeen qorshe 5 cusub 5 sano kala yaalla oo waxaad ku hawl galaysaa ama waxaad raadinaysaa ama wax lama ma jirto buugi waad soo qaadanaysaa halka maxaa ku yaalla ka maxaa ka maqan tuulada maxay u baahnayd waxoo dhan ku dhameystiriyay wata buugeed waa la hayaa halka inaad ka tixrada ma rajaynaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacab weynaha waxa kale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa isku duwaha wasaaradda biyaha oo runtii isaguna madaalaha waa madaalaha xagga biyaha oo haddii la yiraahdo ceel gaal way wax ka sii markaa u dhaaqaya haddii la yiraahdo muxuu ahaa shalay u dambeysay waxa laga soo cawday laanta marooda 4 habeenuu baxay 4 habeenuu baxay 7 waxna ka soo noqday isagoo soo xaliyay hawsha runtii isagana waa shakhsi degmada aad iyo aad ugu muhiima waa shakhsi aan laga maarmaynin kulli isagana wada shaqayntiisa iyo intii la yiraahdo inkastoo biyuhu degmadu hay shirkad gaar ah maamusho haddana biyihii degmada oo dhan halkan hoos marayaan isagana kulli wada shaqayntaas inaad yeelataan hadii la rajaynaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo ismaana saabixin saamaxnaa ku saamaxa cid wax naga tabaysa